waryahay dalxiis sida daawashada dadab xeerano nolol dayrana. fanaanka caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdulaahi Nuune oo loo garan og yahay Iidla Yare ayaa sheegay inuu nolosha ka soo bilaabay meel hoose isagoo ku soo barbaaray xaafadda Madiina ee magaalada Muqdisho. hooyadiisa oo ahayd qofka kaliya oo ay nolosha qoyskaasi ku tiirsanayd ayaa ka shaqayn jirtay iskuul la dhaho Baarbe kaasi oo ay ku gadi jirtay shaah, bajiye iyo waxyaalaha ay ardaydu cunaan marka ay u soo baxaan nus saacaha iskuulka ama breakfastiga. Iidle ayaa sheegay inuusan isaga weligii wax baran waqtigii uu yaraana uu caawin jiray hooyadiisa maadaama keligii uu ahaa wiilka qoyska. fanaanka Iidle ayaa ka soo jeeda qoys dan yar ah kuwaas oo la daalaadhacayay quutul daruuriga qoyska. aniga waxba ma baranin waayo hooyada ayaan caawin jiray. waxaad wax baran kartaa markii la dabari karo nolosha lana gadi karo buugta iyo dharka iskuulka. hooyo ayaana nabiilaysay aabe wuu xanuunsanaa xilligaasi wuxuuna ka tirsanaan jiray dawladdii hore ee Soomaaliya ayuu yiri fanaanka Iidle. fanaanka Iidla Yare oo ku soo barbaaray nolol adag ayaa markii ay hooyadiisa geeriyootay u tafaxaytay inuu qoyskiisa ka faala qaado noloshooda isagoo hardanka nolosha ka bilaabay inuu aado magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. intii uu ku jiray socdaalkiisii uu ka bilaabay magaalada Muqdisho ayaa inta uusan gaarin magaalada Boosaaso waxa uu shaqo ka bilaabay magaalada Gaalkacyo. hooyadee markii ay dhimatay waxaan go'aansaday inaan nolosha wax ka bedelo. aabe ayaa dhabarka iga dharbaaxay oo ay dhahay dadkaaga Alle kaaga dhigo aabe iyo hooyo. laakiin markii aan Gaalkacyo gaaray waxaan bilaabay shaqo inaan raadiyo ayuu yiri. intii uu shaqada raadinayay waxa uu maqaaxi ku taala magaalada Gaalkacyo ka bilaabay shaqo heer hoose ah isagoo ka noqday shaqaalaha nadaafadda balse isla markiiba biibito ayuu shaqo ka helay taasi oo uu sheegay inuu ka qaadanayay lacag aad u yar. fanaanka ayaa intaasi u sii dheerayd in la garaaci jiray haddii uu bakeeri ka jabo. isagoo taasi sharaxaya ayuu yiri habeenkii markii aan qaadanayo lacagta ayuu jilib iyo feer ila dhici jiray ninka aan biibatidiisa ka shaqeynayo. Iidla Yare oo gaaray magaalada Boosaaso ayaa sheegay in uusan horay ka helin shaqo balse uu habeenkii seexan jiray kabarada lagu gado qaadka kuwaasi oo uu ku hoyan jiray markii habeenkii laga rabaxo. wuxuu cuni jiray raashinka haraadiga ah ama hambada laga soo reebo hoteelada cunada laga kariyo. cunadaasi ayuu u yaqaanay tigniko. muddo kadib waxa uu Iidle helay maqaaxi shaaha lagu kariyo taasi oo uu ka shaqayn jiray lacagana uu ka heli jiray in muddo ah. hase yeeshee wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa uu hagaagtay nolosha oo waxa uu noqday fanaan haddana caan ka ah fanka Soomaalida. waxa uu sheegay inuu ku shaqayn jiray rafaad iyo lacag aad u yar balse hadda uu halkii maalin ku shaqeeyo lacag dhan $1,000. haddaba daawade maxaa kaaga baxay sheekada cajiibka ah ee fanaanka Iidla Yare? xanuunka jacayl xisaab malaho tartaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo. xanuunka jacayl xisaab malaho tartaaxiisuhu xad kaba dhaafiyo. adaan kugu xiray xiskiyaman miyaan xaas kale xabiibi dhaha oo aan xaas kale xayaati dhaha.